رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد إخواني القائمين الصائمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت أكدب دقيقة يرين كوبان أين هيسمى إن شاء الله waxaan ka jawaabi doonaa su'aal ayna soo weydiiyeen walaalaheena dibadda ku nool ee dhageystay barnaamijkii aynu ku baahinaynay dib u dhiska masaajidka su'aalahaas oo sharciyan in looga jawaabo mudan su'aasha hore waxay ahayd masaajid baa ku dhawaaqdeen in la dhisayo suuqii waaheenna wuu gubtay idinku miyadaan la dareen ba ahayn dadka waa wax la isweydiin karo waxaan leenahay idinkiinaa naga foga la dhan jooga annagaa idinka dareen badan soo jawaab saxa maaha annaga iyagan hargeysa joognaa idinka dareen badan tusaale anigoo kale ka soo qaad marka ummadda kale aynu ehelkanay laga yimaado faamiligayga reer dirir 8 dukaan baa ka gubtay ma filaysaa oo kuwa abtiga ahaa iyo kuwa ilmaatiga ahayn iyo u badan 8 dukaan oo dadkii barakacayaleeyihiin xaafadaha joogaan wadad kala hore sakada bixinaya maantana iyaga aynu siinayno waxa labaad oo jira de xafiiskii sharaacada dadweynaha aanu ku qaabilaynay maalintii walba 40 qof mid su'aal weydiinaya mid sharaacada nagala tashanaya dad la kala saarayo hawadu ka baxay Soomaha idan culimaduna barakacayaasha ay ku jiraan taasina miyaanay dareen ahayn waa laba dareen oo waaweyn oo ninka la dhan jooga anigu aan uga dareen badana Soomaalidu waxa kale yiraahdaan waqtigu ninku ag yaalo ayuu u uraa qof kasto shucuur leh ka dibadda isaga ka dareen badan oo halkan jooga sidaa daraadeed culimadu doorkooda ay qaateen iyo caamo iyo madax iyo raaciyad dadka dibadda walaalaheen aad bay ugu mahadsan yihiin laakiin ka halkan ka jooga baa ka sii warwar badan oo daqiiqiiba ku baxaya marka intii maynaan fariisana dee tasriixaad baanu bixinayno dadka waa u jawaabaynaayo markii labaad aanu lacag gaarsiiyaan uu gaar ahaan weeye maanta waa daawanayseenoo dee lacag la igu soo hagaajiyo $81,000 oo ganacsada reer China Soomaalida igu soo hagaajiyeen baan guddida ku wareejinay marka taa la dareen ma idin halkaas horta ku hadhay waayahay tulabaad bay markaa walaalaheenina su'aaleen oo ah lacagta 2 milyan sheegteen arbay fiican tahay in loogu deeqo qolada suuq taana jawaabteeda sharciga ah waxa weeye qofku hadduu cilmi doonayo waa in looga jawaabaa marka hore lacagta ayaa bixiyay waxa u badnaa 3 kambani baynu khayr Allah siiyo arinta ka sii horeysay horta baraarujin laha waxay waqtiga lacagtan la ururiyay waqtiga barnaamijkan jiray uu ka horeeyay arintan dad badan baa haysay inuu ka dambeeyo ama imika la bilaabayo tiimika la bilaabila waa inagan joojino sababtan idin ogeysiiyay waxay qaaraankii masaajidka aynu weydiin jirnay baynu sanadkan iska daynay arintan daraadeed laakiin arintan way ka horeysay walaalaheenii shirkadaha waaweyn lacagta masaajidka ugu yaboheen koow haddana waxa yimi abaarihii intii leeg bay ugu yaboheen laba haddana waxa yimi halkan gubatay intii leeg bay ugu yaboheen yani fiicnayn marka waqti hore ahayd wixii ka dambeeyay dhibaatooyin ahaana dadka masaajidka lacagta ugu deeqay in la eg bay mar walba ugu deeqay in ka badan baan oran karaa marka taana way ku mahadsan waa midka labaad oo waxaan u maleeyahay intaan waxa dhiba dhicin ka hor baan xataa heshiiska saxeexnay taana way la ogaadeen maaha wax imika la bilaabayo wixii la bilaabi lahaana way inaga nidhi priority-ga ama ahmiyadda aan siina hawlahan qaayimkee taagan kadibna waxayna kala aan xagga dambe ka dhamaystirano su'aasha kale odhanaysa lacagta la hayo ma lagu wareejin karaa xaggan sharci ahaan maya oo waxay culimada fuqahaadu yiraahdaan dhalinyaro badan oo jaamacadaha diiniga dhigata idin ku jireen waa akhrideen kullee المسجد يملك كما يملك الحر لكنه كاليتيم مسجد كوحا وحمل كيا سيدا قفك حرتها وحمل كيو لكن سيدا أقونك وحبان ببحين كرو بركادي العقب مساجك الله قد يقو waxay la mid noqotay masaajidkan dhisan oo kale
kan imika haddaynu idhaahno aan xaraashno dad u qaybina ka hor dadku madaxay qabsanayaan masaajidkan gebigiisaba intaynu iibinno dadka duruufaysan aan u qaybina haddaynu idhaahno dee sida sharcigu u diidayaabuu caqliguna u diidayaa lacagtaa waxaa la mida ta loogu yabahay akoonka u taalla hadday masaajidkanta iyo masaajidada debadda hadday tahay waxa u yaalla masjidka waa waxuu leeyahay wuu la wareegay ilaahay bay ku wareegtay waxaa la yidhaahdaa laa yubaacu walaa yuhab lamana iibin karo waqafka lamana hibeeyo taasina jawaabteedu waa caynkaasoo mar haddii masjid wax la siiyo lama bedeli karo qof iska daaya masjid kale in lagu wareejiyo kutubta masaajidkan iyo alaabta masaajidkan ayaa doodi ka taagantahay culimada dhexdooda oo qaarna leeyihin war waa alaabtii ilaahay une masaajidada aan u kala qaadno qolyana ay leeyihin masaajidkaasoo qura lagu daynaya markaa masaajidku hadduu wax milkiyo waa agoon qof keliyaa wax ka qaadan karo qofka u shaqeeya ah qof aan u shaqaynin waxba kama qaadan kara xataa kaasina waxa weeyaan waxaa masaajidka usoo xarooday ma la wareejin karaayo masaladaasina waa caynkaa nasiib wanaag ilaahay iyo addoommaha iska horgeyn mayno intaynu ilaahay siinayna waynu siino isagaa baynu ka baryaynaa inuu inoo badiyo addoomaheennina iyo ehelkeennana waynu siinaynaa sida aan shirkadahaan sheegayaaba ay u bixiyeen khayr allah siiye intaa waxaa sii raaca masaajidada iyo dhismahooda waxaa iska yaro jirta fikrad odhanaysa masaajidba uma baahnin beryahan dambe warniyo masaajidkan aynagu wareysa iska dhaafo oo xanaanooyinka iyo dhakhtarada iyo jidadka iyo waxaasoo dhan dhisa haddaynu masaajid kana dhisno xanaanooyin kana dhisno waddooyin kana dhisno ceelasha biyahana dhisno miyaanay sax ahayn doorkaynu u taagannahay waxa weeye diinta iyo dalka iyo dadkaba inaynu camirno laakiin miyay saxtay diinta aan dhan iska dhigno oo dadka iyo dalka aynu camirno taas ma saxbaa fikirkaasaa markaa yar wareegaya xoogaa kudna wuu dila waana loo yar weheliyaa meel aan rabay roobigu yaro eri baa yaro jirta markaa masaajid la dir baa fikrad noocaasa innagoo walaalaheenna su-aashayna soo weydiiye ku tuhmaynin ee inay dadka u damqanayaanuun u aaminsan ama dee u arkayna haddana fikradda noocaasi way yar iman kartaa masaajid meesha looga baahan yahay in laga dhiso wey aniguba waan qabaa masaajidka meelaan looga baahnay inaan laga dhisin oo waxaan arkaa magaalada koonayaasheeda qof muxsina intoo lacag laga soo qaaday in meelaan shacabba joogin masaajid laga dhisay oo cidlo ah oo aada odhanaysa dee qofkani wuxuu u baahnaa waqafkiisan in loo camire maxaa halka looga dhisay taasoo kale sax maaha waa meherad ilaahay oo ajri lagu doonayo meel ay ku camir mayso oo qofkii muxsinka ahaana ajri uga soconayo ummadduna ka intifaacsanayso waa in la geeyaa laakiin meesha looga baahan yahay baahi aada u daruuriya maxaynu odhan karnaa maan ka dayno miyaynu odhan karnaa dee keenanoo kale ka soo qaad laba baahiyooda asaasiyaa keenay in isbeddelkan la sameeyo nimankan muxsiniinta ee lacagta bixiya mid ka midii 15 sannadood ka hor buuri masaajidka aan dhiso masaajidka dadkii uu fatahay wuu buuxsamay maalin walba bannaankaanu ku tukannaa annagaa dhisaynoo duminayna waa 15 sano ka hor marka waxaan ku uhi noo yarkaadiio intaanaynu horta kusii yar loodinayna lacagta meelo kale soo warwareejiya ilaahay mi ku qadaray waaya labada baahiyood midi waa habku u dhisan yahay oo dagaaladii ka hor buu ahaa dhismaha masaajidku madaafiic baa ku dhacday anaaba goobjoog u ahaa iyadoo madfax ku dhacayo aanu ku tukanayno 30 sano ka hor mixraabkaan galay aniyo sheekh maxamuud awsuufi allaha cafiya yar xanuunsanayaa xafidahu llah ayaa inagoo tukanaynaa laba colis heleen colna stationkuu soo galay colna gargaar buu soo galay madaafiicdii baa la isku hurgufay markii aan faatixadii akhriyay waladaalli buu midi soo bilaabay taydhisaba madfacan weyn garararaw buu kaga siiyo minaaradan uu jiirayaa iyo masaajidka markaa jamicii waxay ilaaween inay waladaalin aamiintiina yidhaahdaan aamiintii bay goosteen jamicii madaafiicdaas waxay keentay inuu nuglaado raggii masaajidka berigaa dhisaya waxay idhahan laguma aamini kara dadka shacabka inta laeg markuu tukanayo iminka islaamkiisan sareed uu gariirayaa markaa waxaa khatarban ay ku sheegeen injineeradu inuu dadka la dumi karo taasi waa baahida koobaad baahida labaad masaajidku haddadaan idinla hadlayo dadku bannaankay fadhiyaan ma egteen dabaqa hoose wuu buuxaa dabaqan sarena wuu buuxaa shacab badan baa bannaanka jooga oo ku tukanaya ilaa halkaa dambe ee dhasbiinku yaallo
dadkaasi marka roobku yimaado nin waliba sijaadiisu la carara way firdhadaan soo maaha jumcadiina waa saasoo kale anaaba ka naxa markaan soo galayo dadkoo ilaa baarkinka shishe qoraxda kartoon isaga dhigaya marka arrintaasina waa baahi labaad oo keenaysa in isbeddel la keeno dadku way ugu canaananayeen in badan dib u dhis sameeya maxaa ku soo ururiyay haddii la idhaa dee idinkaa la idin weydiin doonaa anugu ila miskiinkaasaan waxba idiin kordhin maaye waxaa la odhan karaa malaa nadaafadda iyo masaajidka shaqaaluhu si fiican u shaqaynayaan iyo qaarigan codka macaan khayr allaa siiye ayaa u soo ururaysa marka taa dadweynaha la weydiin doonaa sababta ku soo ururisee baahidaasina way jirtaa intaa markaan kasii gudbo masaajidada meelaha looga baahan yahay waa laga dhisayaaba in leen meelahan looga baahnayna yaan laga dhisi diinta iyo dunyadana iyaynaan iska horgeyn ilaahay iyo addoomahana iyaynaan iska horgeyn laakiin diinta aan camirno dalka aan camirno dadka aan camirno weliba diintu waa doorkeenna koobaad nebi moxamed sala allahu calayh wasalam markuu madiine tegey isagii asxaabtu qaxoonti bay ahaayeen qaxoontigu maxaa ugu horreyn uu sameeyaa soomaydaan qaxin in badan oo ka mid ima qaxin waxa u horreeya la sameeyaa in meelo la harsado oo guryo yare la dhisto oo wax la isku hagaajiyo islaamihii iyo raggii dadkii qaxoontigaa nebigu mabuu xusuusana masaajid buu bilaabay horta kaalintaasu ku leeyahay masjidku islaamka dhexdiisa ee wax sahlan ma aha masaajidadu in la dhiso oo meelaha muhiimkaa laga dhiso oo la wanaajiyo wanaajin markaynu ka hadlayna iyo qurxinna waa wixii sharcigu ogol yahay mar walba kitaabkaynu eegaynaa muxuu sharcigu ogol yahay hadday dhismo tahay iyo hadday qurxin tahayba taasina waa caynkaa inagu soomaalida marka la eego masaajidadu door aada u muhiimo caalamka ka duwan bay inoogu jiraan arrintaa ayaan la ilaawin doorka inoogu jiraan waxa weeye ubadkeenna qur-aanka lagu baraa kutubta maraajicda jaamacadaha lagu barto qaybta u muhiimsan culimadeenii hore khayr allah siya masaajidada ku akhri jireen iyo geedka marka ilaa hadda cilmiga ugu muhiimsana rasiinka ah ee mugga leh xalqadaha masaajidka laga qaataa oo aanay ka maarmayn xataa ardayda akaademiyiinta ah ee jaamacadaha markaa haddii masaajidadu yaraadaan macnaheedu waxa weeye qur-aankii iyo cilmigii bilaashka lagu baranayay ayaa meesha ka baxay oo yaraanaya dad badan ba iyagoon jaamacadaba gelin macaahidna gelin halkan xufaad oo ka soo baxa shuyuukh iyo culamaah oo ka soo baxa marka doorkaa muhiimka ana wuu inoo leeyahay masjidku dee tawciyadii iyo isku ururintii dadka iyo nabadgelyadii intiina wacyigelintii baa inooga socdaa oo waa meel aynu ka wada xidhiidhayno iyo ugu dambayntii musaacadaadka qof waloo yaabiyaabaaba wuxuu idhaahdaa war masaajidka waxa layga ururiyo intaasoo jeer baynu qof rafaatan uga ururinaa mashruuc la dhisaya uga ururinaa wax weyn weeye ugu dambayntii masaajid yaa dhisa marka mujtamaceenna soomaalidaa la eego maalan xanaanada iyo cusbitaalka iyo waddada iyo ceelasha biyaha saddex qolaa isugu taga waxaa isugu taga dowladaha ajnabiga dabadda inooga soo gurmada iyo hay-adaha samafalka iyo xukuumadaheenna saddexduba budget baa ugu jiro oo way ku howlan yihin laakiin masaajidada iyo madaariska iyo jaamacadaha diiniga ayaa dhisa hay-aduhu miyay dhisaan hay-addee laguma hadlaynayo dowladaha ajnabiga laguma hadlaynayo xukuumadeennana budgetka uguma jirto waynuu cudurdaariya budgetkoodaa yar baynu odhan karnaa iyagana budgetka uguma jirto masaajidadii iyo goobihii diinta iyo waxaa isku soo hadhay dadweynaha markaa dadweynahana haddii dhegta loo saaro la idhaha masjid looma baahnaa macnaheedu waxa weeye fansalakha minha diintii unha laga siibteeye muqadasaadka iyo goobaheedii markaa radiniga ma aha laakiin su-aashiina waan ka jawaabaan filayaa asraarta meesha ku jirtana waan yala iftiimiyey walaalaheenna waynu xamaasadda ay markaa u qabaan inay dadkooda wax taraan iyo dadaalka ay soo samaynayaan meel kastoy joogaan waynu ku mahadinaynaa waanaynu ugu ducaynaynaa waxaanunu leenahay halkaa ka sii wada cid waloo dabadi iyo guda ay wax gaadhaanna aynu isu garabsanno inaynu taakulayno oo aynu wax ku tarno dhammaantiinna aad baa u mahadsan tihiin ramadaanu mubaarak wataqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal wasalaamu calaykum waraxmat اllaahi wabarakaatu